jaaliyadda DTS ee waddankaasi UK ayaa soo dhoweyn ballaadhan oo aan loo kala hadhin waxay u sameeyeen wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka dowladda Itoobiya Filsan Cabdilaahi Axmed. munaasabadda soo dhoweyntan loo sameeyey oo ilyartu isqabatay ayaa ahayd mid maamuus iyo milka ballaadhan mudan, taasoo ay horkacayeen isla markaasina madasha ay ku sugnaayeen waxgarad, cuqaal, waayeel, dhalinyaro iyo aqoon-yahan tiro badan, kuwaasoo si weyn u soo dhoweynayay wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka dowladda Itoobiya Filsan Cabdilaahi Axmed. ifafurka bilowgii horena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadallo soo dhoweynaya sidoo kale maamuusidba halkaasi ka jeediyey cuqaal iyo waxgarad iyo dadweyne tiro badan oo ka soo qayb galay habmaamuuska soo dhoweynta wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka dowladda Itoobiya. wasiir filsanay fariid lahubo Soomaali ku fahantayaa tahay jibeen martigeliyada gabadha walaashooda ay soo dhaweynayaan taana waan uga mahad celinayaa. ilaahay inoo anfaco ayadaha quraanka wa billahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxa ka xumaan lahayd iyadoo ma taqaanaa xilka hayso oo danteeda gaarka ah ka fiirsato oo dhibaato iyo ma taqaanaa waxa dadka ku dhacayo guud ahaan Itoobiya gaar ahaan kulli deegaankeena dhibaatada kama jirin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. kulli dadka inta badan ee halkan jooga waxaan u maleynayaa in aan isgaranayn, laakiin kulli waan is sheegi doonaa haddii alla yiraahdo. markaan waan salaamaya dhamaantiin. waxaan si kaliya muga u soo dhaweynayaa wasiiradda Filsan Cabdilaahi. maaha aniga wasiirkii hore ee maaha, waa wasiir hadda jooga weyn. Filsan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. inta markaan ka gudbo kale hadaladii muhiimka waa la yiri, laakiin dumar baa haray un baa la istaajiyaan malaynayaa. muhiimiyadu waxa weeyaan soo dhaweynta Filsan. waxaan leeyahay Filsan soo dhawow. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadashay isla markaasina tibaaxday si weyn ugu mahadnaqday dadweynihii kala duwanaa ee soo dhaweeyay kuna soo dhaweeyay UK Filsan Cabdilaahi Axmed, wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka ee dowladda Itoobiya, waxaana hoosta ka xariiqday ahmiyadda ay jaaliyadda UK u leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida. waxaan jeclaan lahaa horta inaan ka hadlo markaan wasiirka noqday ama wasiirka dowladda federaalka codsiga uu ra'iisul wasaaruhu ii soo gudbiyay inaan xubnihiisa cabinetka ka mid noqdo. maxaan kala kulmay wasaaradda, maxay ahayd wasaarad nooceeya bay ahayd. waqti gaaban baan joogay, waqti COVID-19 uu adduunka bilow u yahay, uu adduunku xidhmayo ayaan la soo kulmay. run ahaantii wax badan ma la dhaqaajin karin, dhaqaale badan wasaaraddu maynan markaa haysan. wasaaraddan la kulmayna wasaarad markaad u eegto mug weyn weeye wasaaradaha Itoobiya ama adduunkaba tixgelinta laga siiyo 80% ama 90% wasaarad hoos yimaadaan shacabka Itoobiya bay ahayd 120 milyan oo wasaaradda haweenka caruurta iyo dhalinyarada bay ahayd, iyadoo isaa u mug weyn tahay. laakiin aan wasaaraddan qabtay wasaaradda warsi ayay ahayd. Khalid Fantastic, Television Ariel.